aan dhiirano ilaahay idankiis waa ka adkaanaynaa waana ka adagnahay waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waa ka adkaanaynaa shabaab inaan ka adkaanayna ilaahay idankiis layskuma hayo yay nagu dheeraanin le waqtigii oo ka adkaanayo nagu dheeraanin aan soo gaabino nimankaas shabaabaa la yidhaa maalmahooda waa tirsan yihiin ilaahay idankiis kow lama saddex waa tirsan yihiin maalmaha jiritaankooda qadartii rabbi iyo tooda ayaa meesha ku ekayday waqtigooda ilaahay waqti inaanu ku daraynin qof walba horay ayuu ilaahay noogu cadeeyay qof walba maalinteeda iyo saacadeeda inaan saacadna lagu daraynin saacadna aan laga soo hormarinayn wiilkeena farxaan iyo raggii kale oo la jirayba iyo intii naga dhimatayba waa shuhada dab ah waaye waqtigoodii ilaahay uu u qoray ayaana meesha ku ekay asbaabtu siday doontaa u ekaato laakiin saacadaas un inaanay dhaafi lahayn oo toodii ay meeshaas ku ekayd ayaa xaqiiqo ah annaguna muxuu ahay qadaha rabbi ayaan ku qanacsannahay oo maxaan ku ihahdaay aan aaminsannahay u ducaynaynaa in ilaahay maxaan ku ihahdaay uu samri iimaan ahladii iyo qaraabadii iyo asxaabtiiba iyo dhammaanteenba ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto nin dhallinyaro ah janan ah dagaalka nimankan lagula jiraahe dowrka uu ka taagnaay iyo meesha uga jiray la wada garanayo ahaa nimankaanna waxay yihiin hadda isu tilmaami mayno oo maxaunahay fasiri mayno cadow waaye cadow ummadda soomaaliyeed waaye cadow dalkan waaye cadow dadkan waaye cadow dadkan diintiisa waaye diintay cadow ku yihiin dadnimaday cadow ku yihiin dalkay cadow ku yihiin dadka jiritaankiisa ayay cadow ku yihiin intaas cadow ah ninka u bareeray marka inuu ka hortago oo naftiisa u biimeeyo ilaan dagaal haddaad aaddo inaad soo dhimanaysa inaad soo noqonaysa labadaba waa suurtagal laakiin inaad soo dhimanaysa dagaal haddaad aaddo waa ku talagashay marka ninka dadka ku dhiirada oo maalin walba taagan oo hadda uu ugu dambeeya wiilkeena muxuu ahay farxaan oon janaasadiisa ku dukanayn oo odagii maxaan ku idhahdaa nabadoonka ahaa ee la yaqiina ee cilmi hagar oo muxuu ahay maalin dhaweyto uu muxuu ahay uu ku dhintaa soo qorisito oo dagaalamaayo nimanka la dagaalamaayo dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa geesinimada dhabtaa taas waaye ayagaa shahiid ah oo diinta inay badbaadiyaan oo dadka ay badbaadiyaan oo jiritaanka ummaddan ay badbaadiyaan oo dalkan ummaddan muslimiinta boqolkiiba boqol muslimiinta ay leeyihiin magaciisa iyo karaamadiisa iyo jiritaankiisa ay badbaadiyaan kuwa u taagan waa kuwaasaa kuwa maxaan ku ihahdaay shuhaadada dhabta ah waxaan u baahannahay maanta soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed haddaan nahayba yaa cadow ah inaan isweydiinaan u baahannahay maanta waayo cadowga ay leedahay ummaddan inaan isweydiinaan u baahannahay soomaaliya maanta yaa cadow ku ah dowladnimada yaa cadow ku ah dadkan jiritaankooda inay jiraan ay ummad jirta ahaadaan qaran ahaadaan nation yaa cadow ku ahoo diidan inay cibaadaystaan oo diintooda ku toosnaadaan oo masaajidda camiraan yaa cadow ku ahoo diidan oo masaajidda ilaahay cabsi laga qaba daraaddeed ay u camirmi laayihiin dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan ee duruufta iyo maxaanku idhaahdaye muxuu ahaay qadaha rabbi uu keenay ee abaartu ay ku dhacday ee miyiga ku gaajaysan ku haraadan ee walaalka kaloo soomaaliga oo muslimka ah ama midka caalamka jooga ahi uu rabo inuu u gargaaro oo biyo gaarsiiyo oo raashin gaarsiiyo yaa ka hortaagan cadow kale may ummaddaan leedahay qof hooyo iyo ilmaheed haraadan waan sheegi doonaa magacyadooda 4 cunug oo isla dhalatoo dugsi quraan u socota nimanka dilay waay maalin dhaweeto on the record sawiradoodii alla hayaa meydkoodii alla hayaa 4 wiil oo yaryar oo isla dhalatay oo hooyadii ay u soo dirtay ordamaanday maxaa dugsi quraanka aaday tiri nimankii jidka ku dilay nimankan waa cadow dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta dadka shaki uga jiro shabaab inay cadow yihiin in kale walaalayaal waa dhunsantiin ilaahay ay isu hanuuniyaan leena ogow shabaabka wax qarxinayo waa cadow kan ku taageerayana waa cadow baasada siinayo qarinayo guriga dejinayo qalbiga kala jira cadow waay
meel dhaxo oo la istaagaahi maanta Soomaaliya kuma taalo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay meel dhaxo la istaaga kuma jiro shabaab qora qaado kula dirir maxaan ku yiraahdaa dhagax ku waxaad kula dirir karto gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tagin ka leexo afka dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafu iimaantii ay daba socotaa taas xumaan waay qof bini aadan ah dad qofkii dila qof dunida oo dhan asoo dilay ayuu la mid yahay qofkii qof nooleeyana ummadda oo dhan asoo nooleeyay la mid tahay intiiaan ku haysanaa marka nimankaan bal eeg wax kale iska daa dadkiina waa dilayaan qof ma dilayaana tarabtarabay u dilayaan naftiina in la badbaadiyey diidan yihiin dilka ka sokow xabad kuma diloohayaan qarax kaliya kuma diloohayaan baahiyay ku diloohayaan dadkii majaaca inay dadka ka dhex kacday ku diloohayaan laana raashin la wado oo aan muraad kale loo wadin oo nin jeebkiisa inta ka bixi baaso oo ku bixiyo ka soo gado yiraahdo walaalaha dhibaataysan oo duruufaysan hal gaarsiyo u jidka u taagay oo diidan yahay magaalada Baydhabo مثلا soo qaada waa jamhuuriyadda dhammaan sida ah 280,000 oo qof waaya dadweynaha degan ee guryaha ku leh ee la yaqaan magaalada Baydhabo 300,000 wax yara ka dhiman 750,000 oo barakacayaal ahaa jooga qabiil isdirar kama soo cararin cadow soo duulo dibadda ka yimid kama soo cararin abaar waa ku dhacday waa run laakiin meeshooda wax loogu geey karay deegaanadooda wax loogu geey karay qaarkood meelihii ay joogeen ilaahay wuxuu qadaray inuu roob ka da'o waa beeran waayeen beerihii beerta saad u beertid beesa keenaa la yiri ilaahan idinku dhaariyey ee dadkaasi intaan iska soo galnaa waa isku midab egnahay waa Soomaaliyan ku wada hadalnaa miya intaan iska soo galnaa meelaan iska soo galna malaha ninka mabda'aas qaba meelaan iska soo galna malaha qofkan corona qaba hadii la soo kama carareyn ayaanti dhaweyto ya corona qaba hadii la hebela corona qaba hadii la soo kama carareyn nimankaas waa ka carareyna u dhawaanayno wax ku darsamayno meeshay joogaan tagin bayno maxkamadooda iyo business-tooda iyo wacdikooda iyo shirkooda iyo maxuu ah meel ay joogaan tagin bayno yaan la tagin yaan loo dhawaanin meel ay joogaan yaa tagin geesiyaasha kuweena ah ee dagaalamaya ee duruufo adag ku dagaalamaya bal nin fiire aan mishaar qaadanin hadda awal askarteena mishaarku waa ku yar yahay iyo dhaqaaluhu waa ku yar yahay iyo sidaanaan dhihi jiray maxaa soo baxa hadda kumanaan Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo mishaar qaadan annaan rabin nin walba gurigiisa saaka inta muxuu ahay cambuuladii holi kar inta ka soo cuno qorigiisa soo qaatay dadnimada meeshaasay jirtaa midaa dhuumanaya shabaab beeso ula dhuumanaya beeso u wado ha telefoon ii soo diray aniga waa cabsa caqiidadiisa wax u dhimay laana maalinta uu dhimalahay inuu ka soo hormarayo aaminsan yahay maalintii ilaahay u qoray oo uu dhimalahay inuu ka soo hormari karo shabaab dhimashadiisa ka soo hormari karo aaminsan yahay kama soo hormari karo maalinta dhimalaheed un baad dhimanay ama shabaab beeso ula garguuro ula dhuumo ama qora qaada shabaab la dir maalintaadii aad dhimanayle kama soo horm inaad qora qaadato daraadeed dhimashadaadu uma soo hormarayso inaad lacag laaluusho xaaraan ah shabaab oo dad lagu dilaayo dad lagu qarxinaayo oo dad lagu nehbaayo inaad shabaab ula garguuratood ula dhuumatana ku badbaadi maysid caqligu ha noo soo noqdo xisku ha noo soo noqdo adduunyadan maalinaad leedahay maalintaadaad dhimanay sharaf iyo karaamo ku dhimo ilaahay qabrigooda ha u waasiciyo ilaahay dembigooda ha dhaafo ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo abaal allah ka waraabiyo ummadaanay abaal u galeen oo naftooda inay u bixiyaan ay go'aan ayagu ay gaareen lama khasbin laguma riixin laguma waxayn ayaga go'aan gaaray fiiriyay ummadaan inay culays ka saaray dib ka saaray ka dul qaadaan boqolaal kumanaan waaye kuwa naga dhinto naga baxmaan kuwa nool wali soo taagan مثلا usoo qaadanay muxuu ahay generaal muxuu ahay farxaan
markaan sheegayno ama nabadoon cilmi hagar aan sheegaynaa maalan usoo qaadanayna waa kumanaan dadka u taagan ama ku dhintay qaarkoodna weli u taagan yahay oo maxaan ku rahaa kor u hayo muxuu ahaay kelmadda saxda ah ee muxuu ahaa islaamnimada waxaan rabaa marka ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan cadow waa hal laba ma aha laba cadow ma lihin hal maanta Soomaaliyada maanta berri wixii ilaahay ka dhigay noqon doontaa insha Allah maanta Soomaaliyada jirta cadow waa hal waa shabaabka qaraxyada oo hotel xayaa dadka ku laay oo 14 Oktoobar maxaan ku raadaay dadka maxaan ku ku laay kilomitir 5 iyo maalin walba saas u laaynaayo oo qarxinaya ki qarxiye bas ma aha qaraxa shabaab ma soo candhuuf meel uu ku tufay ma aha baas uu ka soo bixiyay dad uu ijaaray meel uu ka keenay lacaga lagu bixiyay dhamaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneer oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha على ديرها مالها بقبقلايا شيطانك iyo hebel deeriyaha ka sii mujrimka kale oo ka sii weyn bangiga baas ugu ma jirto baasadeena waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dambiil ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas la isku xirxiray ki bixiye dambiil ma aha waayo qofka loo sheegayo oo aqligiisa oo aqbali karo dambiila tahay adaa ka weyn laana adiga lacag hadaadan dhiibi lahayn ninkan qarax isku xiray ma heli lahayn adiga waa mid ka weyn kan lacagta dhiibaayo waa adiga dambiilaha koobaad waa adiga laana ninkan wuxuu qarxiye ma heli lahayn hadaadan adiga lacagtaada dhiibi lahayn nolosha iyo dhimashada ilaahay yaa haayo abu hebel ma haayaan yaan lagu kadsoomintaas waa caqiida yaraan waaye waa diin yaraan waaye inaad saas aad muxuu qalbigaaga ay gasho oo aad ku fikirto inaad ishaligtood qaar iska tuur noqotaa meesha kuma jirto inaad xeeladayso is ilaaliso naftaada sidii Allah isaad ku badbaadi karto aad ku badbaadiso laakiin naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftooda in la laayo taada kuma badbaadi kartid cudurdaar uma gumaystaas sharciyan meel aad uga banaanta malaha naftaydan badbaadinay marka boqolkaas qofood in la dilo ayaan maxaan ku iraadaayay aan naftaydu ku badbaadinayo mana ku badbaadiyo hayst cudurdaarna uma laha mandiq meel ay ku salaysan tahay xigmad ay saaran tahay male diin ma aha aqli ma aha wax ay tahay lama yaqaan aniga shabaaba idilaayo si uu idilin laakiin qaraxa oo zooba dadka kula laay baasidiisi aan dhiibaa dadka Soomaaliyeed oo meel kastoo aad joogteen walaalayaal kaca qalbiga ka kaca waa hurdaan hurdada ka baxa riyada iska dhaafa adduunyo saas lagu ma raadiyo aakhirana iska dhaafbo maanta waa ku celcelinaa Soomaaliyada maanta joogta ee Ilaahay dadkii noolaay oo zamanka jooga annaga inteenani intana la mida oo Ilaahay naga dhigay hal cadaway leedahay waa hal cadawgaas shabaabaa la yiraa macnaheeda kan qarax samaynaya kelimaa shabaab kalkaal baasabixi guri ka ijaar baabuur ka ijaar u soo iibi baabuura ka sii iibso baasaan ka helow haadhe xagga ka dhac inta yeel walaalka Soomaaliyeed oo muslimka ah oo shabaab kalkaal ha noqonin cadow waa hal waa shabaab qalbigaaga wax ku jiro ma xukuno maxay ahayd nahnu nahkum bidhawaahir wallahu yahkumu bisaraa'ir waxa qalbigaaga ku jira markaad shabaabka la hadlaysay iyo waxaad kala hadashay adaa yaqaano laakiin anaga inaan la hadashaa u jeednaa shabaab kale la hadlale Soomaaliyeey walaalayaal shabaab ha laga fogaado macnaha physically distance-ga ha laga fogaado 2 kilomitir ha loo jirsado ma aha la ma aha dhaqankiisa ha laga fogaado macaamilkiisa ha laga fogaado ha la dhaqmin ha la macaamilin waxa ku darsanin ka leexo ha u tegin meeshuu jooga ha joogsanin naftaada ba khatar ku jirtaba meesha uu jooga hadaa joogto in lagu duqeeyo ba khatar ugu jirtaaba iyo in operation laga soo kor degto oo commandoska ay ka soo kor dhacaan meesha lagu waxay ku jiro
وأشيغنا ذاتك الصومالية مركلة وكوانينينا وأوقع عقل علينا وانا أقدقينا عذر دار مليهب مدعوينا جمهورية دان هاي لإيقوما إما كرو لإيقالا هدل كرو قف شباب هورت سيدي سب الله هايستو تو سعر قور ديرا لساقة تيرا قف بشباب تو مديس إيسوك محكمة ديسو ما والله إنك والله يرواكو قصبناي محكمة ديسو تقي أهلا وسهلا شباب واي مشور واكبحو عذر دار ملهن أنا اللي يقول ما كرن سراكيش أمني قال لو قلت كرن نكى وقلت لك سراكيش أمرون وأوشين هذا نواكو علينا نكى إن شباب الدبس السعودية وات شباب كالكال نبضون معها حلبان معها محنكو هذا ولا كلام معها وزير معها وحبان معها وشباب كالكال شباب حير إنك دبس السعودية والله الظلمنا معنا والله الظلم ما يقع شباب نمي أنت اللي جوا محكمة ده اللي جي وحبا أنت اللي جوا السوداء السعودية اللي يروح بلد كل سوء هذين سيستم لنا محكمة ده صحيح حكمته سيء وحكمته أقبلنا جهد يدلال أيها على جربها أنت تبارست يوم حوا هو شخص لكن نظام كشرعي جوامرنا نوجماعة كان كران شباب إن أنو نظام شرعي أمرين أو شرعي دربكو صعده نوجماعة كان كران كفوا جو حشمة يا كرامة يا قدرت يكملهد شباب إن أجوك تدردد by the time وقت قاعد شباب أتكتي أدل جوكتد وحاد بير دريسي حقوق ذاتي أجو وأن هنددا ولا يدلا يدولد إما إلى عليك ارتمانه هذا الكلام يقول قبه بلاي لسلقة بلاي معه والقولا وذا قبه أنا قدام ما تحديثا عقيدة دينا عن إلى إنه ما رنتاد ما له هذا ما نهي ولا الكسر ماريادو ساعدنا الوجود ما ساعدنا لقى دبدك ما ساعدنا لو صهر مريما ساعدنا لا دبدق ما بس نمكم حين وايستاد ديرنان تسيرتان لانا وحير ان ديرنو ان لانا ان ديرنو الهي اذن كيس وا كادكانينا وانا كادغناي وا كتير بدناي وا كخوق بدناي وا كخوره بدناي وا كادكانينا شباب ان كادكانينا الهي اذن كيس لسكما هايو ينو دheeraan ilaa waqtiga oo ka adkaanayo nugu dheeraan aan soo gaabino nimankaas shabaaba la yiraa maalmahooda waa tirsan yihiin ilaahay idankiisa koow lama saddex waa tirsan yihiin maalmaha jiritaankooda bas annaga u baahan leh inaan fahamno aamino ku qanacno maalmahooda inay tirsan yihiin anaan dadajino hor u dhameystirno waxaadan hurayn habaar laguma darsadaa la yiri waa nimankaas isma hurayne yay nugu daba dheeraan ciyaw aan warkooda iska dhamayno aad u maasantiin mar kale ilaahay dambigooda ha dhaafo su-aasha muxuu ahay allah u fududeey qabriga allah u waasiciyo iyaga iyo inta qadiyada ay u dhinteen u dhimato dhanba ilaahay hayo ahladii iyo qaraabadii ummadda Soomaaliyeed samri iimaan allah naga wada siiyo